kulan wacan daawada meel walbo aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaal kale waaya filmis oo hadana kale kusoo gudbiya muuqaalo la xiriira arrimaha Bollywoodka. muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xidigta ku cusub Bollywoodka haddana aan kasoo jeedin qoys Bollywoodka saameyn ku leh kana soo muuqata filimka Super 30 ee Munal Thakur. xidigtan ayaa kusoo caan baxday filimka Love Sonia ee ku saabsanaa gabdho loo dhoofinayo in jirkooda laga ganacsado waa ay door muhiim ah ku lahayd. waan ku faraxsanahay in Bollywoodka aan kusoo galo wajigaan waayo ma jiraan gabar jilaa ah oo filim ka ah udub dhaxaad. Priyanka Chopra waxay ku qaadatay 8 ilaa 9 sano inay fashion-ka noqoto. waan ku faraxsanahay dhab ahaan inaan filimkay koowaad aan ka helo door hogaamineed oo aan diiradda saaro xaaladda gabdhaha la dhoofinayo. Munal Thakur ayaa lagu ammaanay doorkeeda bandhiga xirfadnimo ee filimka Love Sonia. waraysi ay siisay BBC Asia Network ayay kaga hadashay in qoyska Bollywoodka aysan kasoo jeedin iyo waxa ay kala kulmi karto Bollywoodka. halka shay aan ogahay ah inaan noqdo qof iswaafaqsan ma rabo in la ii aqoonsado atrisho telefishin ama jilaa Bollywood. qaybahaas waxay ii dareensiinayaan inaan ku raaxaysan sidoo kalena waa wax adag maxaa yeelay qoyskayga kama soo jeedin Bollywoodka wax xiriir ahna kalama dhaxeeyo waxaana aad u muhiim ah inaan nafsad ahaanteeda xushmeeyo. xidigtan ayaa la weydiiyey sida ay dareento maalmahan oo saxaafadda ay hadal hayso Sara Ali Khan, Janvi Kapoor iyo Ananya Pandey oo dhammaan ay Bollywoodka kusoo galeen qoys Bollywood ah inay kasoo jeedaan iyo waxyaabaha ay hadal hayso markii arrimahaas la soo qaado. waxaan dareemaa inay u qalmeen Marwashira Devi sidoo kale si adag ayay u soo halgantay inay Bollywoodka soo gasho. shaqadeeda adag ayay ku meel martay caruurteeda ayay tiri xidigta. xidigta ayaa sheegtay inay dareento xumaan inaadan kasoo jeedin qoys Bollywood ah iyo sababta. waxaan dareemaa xumaan sababtana waan kuu sheegaa. mararka qaar markaad kasoo degtid aeroboortka gaarigaaga ma haysatid darawalkaada kaas oo caruurta Bollywoodka ay haystaan sababo qoyskooda ah laakiin ani ima aqoonsano jilaa gabadhiisa ama kasoo jeeda qoys Bollywood ah. waana i farax gelinaysa in la idhaho Munal Thakur ma ahan qof uu dhalay xidig Bollywoodka halyeeyka ah oo shakhsi kale aan ahay. xidigtan filimada ay kasoo muuqata waxaa ka mid ah Butler House, Super 13 iyo Love Sonia oo ahaa filimka ay kusoo caanbaxday. waxaan u diyaarsan filimka Toofan. inta ayaan kusoo xiraya warbixintaan kaga hadlaynay xidigta Munal Thakur. haddaad ka heshana la wadaag asxaabtaada.